good now. So, and I wanted to thank for FIFA for supporting me all the way and Somali people also. So I'm very grateful for FIFA and for CAF also. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب قيمها دمانتين waxaan leeyahay soo dhawaada maxaa maanta maalmahan cusub oo update-ka oo dhamaan dadweynaha caalamka ay indhaha ku wada hayaan ay bumbuuninayaan haday noqoto wararka adduunka caalamka sida BBC Al Jazeera dhan walba iyo haday noqoto siyaasiyiinta kuwaas ay u doodayaan ay garab istaag weyn u muujinayaan walaalkeen Soomaaliyeed Umar Cabduqaadir Cartan oo ah albitradii loo soo soocay dhamaan albitrada adduunka caalamka marka laga soo celiyo albitr kamid ah albitrada Soomaaliya waa markii ugu horeysay abad markii ugu horeysay Soomaaliya ka soo boqonayo World Cup-ka soo referee albitra arintan waxa ahayd arin aad hadaan Soomaali dhiigeena kicisay aan ugu farxinay balse nasiib darro marka uu ka degay Umar Cabduqaadir Cartan halka iyo Mareykanka ayaa dhamaan Mareykanka waxa uu wareysi la yeeshay wiilkeena Soomaaliyeed ayagoo wareysigaas ah 12 saacadood wareysi la wareysay dhan walba laga wareysanayo asagoo oo wili committee-giisa TC wax walba u saxsan yihiin balse waxa uu nasiibka noqday in laga soo diyo in ay Mareykanku ay dib u soo celiyaan ay ku soo dego Muqdisho sabab la xiriirta ilaa hadda lama garan laakiin sababtan waxa aan ahaan u badinayaa in la soo cisho wiilkeena Soomaaliyeed uu ka imaanayo amar sare halka ay madaxda sababtoo ah Trump waa garanaysaa sida uu Soomaalida aad ugu nicib yahay lama tusi karo waxa ku cadeynaya Ilhaan Umar sababtoo ah Ilhaan Umar nacayka u qabo laga yaabo inuu isleeyahay Ilhaan Umar iyo Saxiina Soomaali isla yihiin dib u celi sagoo mustaqbalkiisa riyadiisa barbariyay Umar Cabduqaadir Cartan da'diisu waa 34 sano da'da uu jiro oo hadda la rabo World Cup ku qabto balse nasiib darro uu ka baaqaday da'da kale ee soo socota Umar Cartan World Cup soo socda kale wuxuu jiri doonaa 38 sano taasoo ah dadaal aad u baahan la yimaado iyo hawlkar si uu u qabto World Cup kale oo soo socda soo da'diisa 38 sano bas waxa warar kale oo cusub oo la sheegayaan oo soo baxay Canada ayaa cusatay in Umar Cartan ayagu ay soo martiqaadayaan soo dhaweynayaan dhan walba xagga fiisiisi xagga ma taqaanaa soo dhaweynta wax walba u sameeyno noo imam anaga noo qabo albitro waayo Canada kama baqayso Trump noo imam anaga wax walba ku sameeyna wax walba ku qaban qaabinayna oo saxda u jeedan warbixinta ay soo saartay Canada mas'uul kamid ah Canada balse waxa arinta kale jida waxa weeyaan wada World Cup waxa lagu qabanayaa dadkan ogeyn saddex wadan waa Mexico Canada iyo Mareykanka ciyaaraha ugu badan waxa lagu qabanayaa Mareykanka sababta riyadiisu u ahayd inuu ka dhigo mataqaanaa Mareykanka uu World Cup ka qabto Mexico waxa lagu ciyaaraya 13 kulan oo gudaha Mexico ka dhacaya Canada sidoo kale 13 kulan baa iyadana lagu dheelayaa balse Mareykanka kulamada ugu badan Mareykanka lagu dhawaad 78 kulan waa garan ka dhaa marka World Cup dhinaca u badan ciyaarta lagu dheeliyo inay tahay Mareykanka balse waa isu suurtagal laakiin Canada ayaa u garab istaag aad u muujisay Umar Cabduqaadir Cartan dhamaan hadii noqoto wararka adduunka caalamka dhamaan waxa ahayn balaadii doorka fariistay legendaries kamid ah Arsenal dhamaan waxay u muujinayaan garab istaag aad u weyn balse garab istaagan ma noqon doona mid nasiib ka dhiga in dib u qabto World Cup-ka la soo cisho laakiin sida ay tahay ilama muuqato Canada mar walba waa aad ay ma aha wadan cunsuri ah sababtoo Mareykanku waa aad u yahay cunsuri Trump waa aad cunsuri badan oo aad u nicib dadka mataqaana madowga ah laakiin Canadianku ma Canada wasaaraha Canada waa mid mar walba garab istaaga dadka mataqaana cunsuri ah dadka garab istaaga balse waa arki doona Umar Cartan waxa uu ka bixin doona maanta waxa uu ka soo degay Aadan Cadde International Airport ee magaalada Muqdisho asagoo oo loo muujiyay soo dhaweyn aad u balaaran oo aad u la yaabisay Soomaalidu aad u soo dhaweynayso mar ay wareysanayso uu ka soo dego Turkiga ay Turkiga u wareysanay wuxuu leeyahay anigu ma niyadjibin ismana dhiibi doono in aan riyadada ka rumeeyo waayo fiidoogan Turkiga markuu ku soo degay aad ay u qabsaday baraha bulshada ee caalamka sida quruxda badan uu hadlay wuxuu leeyahay ma maasan tahay si ay soo bartagareysay FIFA iyo sida ay garab istaag ugu muujisay balse way noqon weyday in aan qabto World Cup-ka
iyadoo oo la sheegayo iyadoo oo FIFA ay ganax ahaan u bixinayso ama raarigin u bixinayso 12 saacadood ee lagu haystay Mareykanka Cumar Cabduqaadir Cartan $100,000 waa ciyaarta lacag total ahaan lacagta ku qaban lahaa World Cup-ka hadduu Albitre qaban lahaa lacagta heli lahaa lacag u dhiganta ama soo dhoweey $100,000 in la siiyo abaal raarigin ah Cumar Cabduqaadir Cartan balse nasiibkiisu waxa uu noqon doonaa anaga waxa uu rajeynaynaa kolley wixii wanaagsan oo khayr ah Ilaahay baa garanaya mar walba Ilaahay hadduu khayr kula doono waxa dhici kara waxa adigu rabti inaad sameysay ay tahay oo Ilaahay ay shar tahay oo Ilaahay ka garab marinayo balse waxaad ku cadeynay Cumar Cabduqaadir Cartan asagoo Albitre Soomaaliyeed Albitre caalamka inta ma taqaan asagoo Albitre Soomaaliyeed aad ayaa loo bartay oo aad ba hadda wuxuu noqday famous ba nin aad bar adduunki qof walba hadda waa bartay laakiin cidna ma aqoon oo nin kooban buu ahaayo mid kooban yaqaan laakiin hadda wuxuu noqday qof international qof walba hadal hayo saameyn aad u badan buu ka helay oo laga yaabo haddii World Cup xitaa uu qaban lahaa inuu hadda ka saameyn badan yahay oo dhammaan dadka dhan ay hadal hayaan halkan waxa uu rajeynayaa walaalkeen Soomaaliyeed horumar wacan isdiibin never give up insha Allah wax walbana khayr qabana way soo daahan maalintaada wacana insha Allah way imaanaysaa aan garab istaagno aan garab istaag u muujino dhammaan asxaabta qiimaha badan ee channelkeena waxa uu gaaray 100 subscribe hadda inkastoo 100 hadda wax yar ku darsameen waa mahadsantiin dhammaantiin saa qiimaha leh ee mutaqaana subscribe ta aad igu muujiseen haddana waxaan rajeynayaa insha Allah inaad asxaabta cusub ee subscribe saartaan like ta share ta community waayo mar walba video cusub soo dhigno oo mar walba ay ninku subscribe iyo like noo saartaan way waxayna noqonaysaa dhiirigelin motivation baro noqonaysaa YouTube kana waa YouTube cusub qof walba video ga daawada please subscribe tan saar like na saar comment na isoo qor waxaan rabaa inaan ka hadlo sida ay jecesha wararka caalamka wixii caalam ayaan isoo gudbiyo insha Allah taageero garab buuxana in noqdo insha Allah insha Allah waan aaminsanahay meeshaan rabo inaan gaari doono insha